السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا waa idin salaame walaashin umisra decor maanta maxaa idin soo geliyay waxaan idin soo geliyay sharaxaad yar oo cafe table ka aan ugu talagalay sharaxaadana arkaysiin iyo sidii aan u sameeyay balaas alaabtaan inta meesha hadda ii saaran meelihii aan ka kala keenay waa isfahanay soo ma ahan waayo waxa kommentayaal badan igu soo qortay abaayo waxa aan sharaxday aan meesha noogu sharaxday meelaha ka gadan inoo raaci haduu ilaahay idmo marka marar badan aan sheegay alaabaha marar badan meelaha ka gada sheegay laakiin haddana markii aan video aan idin soo gelisaan camal oo dib aan u isticmaalo update oo kale ayadana waa idin kugu celin doona insha Allah intii oo karaankeyga waa idin ka caawinayaa aadaan u mahadsantii walaalahay commentiyada quruxda badan oo ku mahadsantihiin sida ila socotiin oo ku mahadsantihiin subscribe kana ayadana waa ku mahadsantihiin inta saarin si fiican noogu sii saaro walaalahay insha Allah marka haddana soo daawada si aad sida aan u sameeyay qaabkan quruxda walaalay had sida arkaysiin waxaan soo dhiganayaa bahashan oo koob ku sawiran yahay bahashan mideeda kale miiska qadada ii saaran tahay laba xabo oo noocan ayaa waxa ku helay hadiid ahaan dukaanka alaabta ka iibsaday fadhiga ka iibsaday iyo alaabo badan wuxuu ii siiyay wax hadiid camal alaabtu iskay soo raacsiiyay soo darbigana ku dhagsan kartaa miiskana decoration ahaan waa u saaran kartaa meesha rabtida ku sharaxan kartaa waa bahal oo waxba ka diideen waaye soo midaas halkaas ayay iga soo gashay bahashan gabar walaashii alaab ii keentay ayay ku jirtay aniga meesha ka soo gaday ma aqaan qaralaha siiyo alaab gabar walaashii ii keentay oo alaab inta u dirsaday ayuu soo dhex dartay ayay ku jirtay oo bahashaas daahana waa loogu talagalay waa idin sheegay muraayada soo saartay hadda oo muraayada la socotana waxaan ka gaday dukaan la dhahayo Eco inta soo isku fahanay soo maahan intaas Eco ayaa ka gaday shumacaan weynka hadda aad arkaysiin asagana Eco ayaa ka gaday wax badanna lama gado Eco qofkii haysto dukaankaas ayaa ka iibsaday haduu ilaahay idmo intaan hadda meesha soo saaray waa idin sheegay intaas waan isku raacnay ayaan filayaa intaan oo geeska ayaan ka soo dhigtay and then waxa ii dhiman intii kale asxaabteed hadda sida u jeedin waxaan soo saarayaa geeskaas waan dhameynay waa gees qaybta noo noqonaysay hadda waxaan soo aadaynaa saxanka oo shumac la saarto oo dhalada saxankan waxaan ka iibsaday Mobler saxankan different size ayuu leeyahay gabdha abayaal marar badan igu soo celiyeen oo size-kiisa aad ugu wareereen marka aniga exactly size-ka aan dalbaday ma soo xasuustay inuu medium ahaa inuu large walaal ma kala xasuustay laakiin dukaankaas Mobler ayaa ka dalbaday size-kan waa iskaga nasiibsaday le marka kaasna waa sidaas asagana halkaas ayaan ka iibsaday laakiin size-ka exactly ma soo xasuustay abayaal oo ka xumaaday ayaa arkay oo kuwana mid aad weyn loo keenay kuwana mid yar loo keenay laakiin afar size camal uu leeyahay aan mid iska qaatay midka dhexda muuyo ahaa wallahi ma aqaani baashan hadda soo dhigooyo HM Home waaye ayaa ka soo iibiyay waliba waxa ku iibsaday mar raqiis ay siiyeen oo markii dhalashadaada ay tahay dukaamada ka tahay customer-ka ka tahay custom-ka maxay ku siinayaan code ay ku siinayaan alaab ku gadan kartay oo wax raqiis lagu siinaayo shumaca kale oo bahash ii suran yahay hadda soo dhigo candle holders waxa ka iibiyay Mobler asagana alaabta markii aan iibsanayay ayaan la iibsaday Mobler waaye saddex xab ayaa ka qabaa saddexdaba Mobler ka iibsaday kan maxaa ka qaatay hooyaday gadaysay ayaa ka qaatay geeda ay keentay ayuu ku dhex jiray waxaan ku jirtay xabadkan iyo xabad kale bis oo gabar kala qaadatay marka labadaas xabo ayaa ku jireen hooyaday ayaana ka gatay meel kale kama soo gedin asagana laakiin kuwa kale ayay haysaa qofkii u baahan uu ila soo xiriir karaa marka kan geeskaas ayaan uga baxnay asagana meeshan soo saaranay walaalihi baa ila socotiin Soomaha waxa dhahday wixii nooga faa'iiday meelaha ka gadana noo kala sheeg marka waa idin sheegoyaa bahalkan yariiska quruxlooga dabqaadka bartaas oo soo dhigtay meeshan aad ayuu ugu soo baxay this time isticmaalo wax flower waayo flower mar badan isticmaalo way ugu aragteen Soomaha markaan kandelayaal yaryariisa iska isticmaalay oo wax yar iska simple iska rabay bahashan oo bahash carfeyso way iga dhamaatay actually waa qastaa mid qasta ku shubtaa hada tii qastayna way ka dhamaatay soo marka laakiin waa iska soo isticmaalaya ay qoryaha wali way carfooyaan
soo meesheeda iska soo dhiganayaa waa ujeedin hadeertaan meesha yani wax yaroo simple oo qurux badan ay kusoo baxaysaa weli wax yaraa u dhiman ma dhameynin dhameyskana lasii socda hadduu ilaahay idmo hadda meesha waxaa noo saaray candle holderka dheer oo HM-ka idanka unsiga candle holdaha kale oo dhaldhalada ah oo semablerka ah iyo bahashaas silverka mar hore aad dukaanka gata laakiin dukaanka exactly ma xasuusti midaan hadda soo hartay waxaa kasoo gaday dukaanka Carvera la dhahayo mar hore ayaa soo geliyay dukaan oo sharaxaad ah kasoo gatay oo ku jiray ayaan hore ayaa soo geliyay fiidiyoyaasha dibadda ugu laabatid waa arkaysa hadduu ilaahay idmo marka waa tan sharaxaadeen wax yar qurux badan soo kuma soo bixin caadi ma ahan inaba caadi ma ahan la dhihi jiray this time is inaba caadi ma ahan ani aada uga helay kuley wax yar oo iska simple ah oo indhaha u roon waaye iskana muraayad iyo silver wax yar iska yar ah gold iris waxa ugu jira bahashan oo mataqaanaa bahalkan oo idanka afkiisa ama furkiisa iyo waxay ugu jirtaa bahash yar ee shumaca iyo geeska saaran oo dhalada kale saaran marka inta ayaa gold ka ah inta kale waa iska silver wixii ay haysatid ku sharaxa ayaa la dhahaa design-ka yani design oo waxa waaye guriga aniga waxaa qabaa guriga aad dukaani ah mar armaajadaas oo TV-ga iyo armaajooyin kale oo ugu yaala guriga meesha dhexda ah waa ka soo adeegtaa maxaa waa taga armaajooyinkaas barkimo ina soo gadanay camal barkimaha soo qaataa maxaa ka soo baxsadaa waxa sharaxaada ka soo baxsadaa sababtoo ah gurigii ah 100 wax ku taala soo 100kii wax ina isku wada isticmaalo Soomaa midba waxa isticmaashay soo midba mar ayaan iskala soo baxaa waa soo sameystaa waxa video ah soo geliyo waa aragteen waxa ugu badan aad bedesho waa barkin ama wax yar oo hal flower ah ama hal boos aan soo iibsado maahane inta kale waa all wixii aan haystay ayaan dib u soo isticmaalaa lacagna kaama qasaarayso waan wax yar qurux badan wixii guriga ku yaal la isticmaalaysaa waana sheekayro aniga aan jeclahay oo ii shaqeysay adinkan inay idin shaqeysaa Regina walaalihii marka maasha Allah sida arkaysi qurux badan ayaa jirto banaanka ka jirto waxaa ku iraahday alaabteen sidaan ay noogu soo baxday qurux iyo mugdi alaab ku qaadan karta waaye waa alaab yar iska simple ah habeenkina qurux badan oo shaynin leh maalinkina sidaan ayaba maasha Allah u dhadhalaalaysa ay ku qurxoon tahay marka walaalay waxa idin rajeynaa videoga ka hesheen like iyo share hanaga iloobina subscribe to waa free walaashaan waxay u taraysaa idan noo saara doo Ilaahay idmo إن شاء الله أنت فيديو دنبا أنكو كل ميننا وحايد الله هاي مع سلامة.